In fighting Hamas and the Iranian axis of terror, Israel is fighting the enemies of civilization itself. Victory over these enemies begins with moral clarity. Ra'iisul Wasaaraha Yuhuudda oo qirtay jabka culus ee soo gaaray ciidamadiisa Hamas oo caawa gantaalo ku garaacday deegaano ka tirsan Israel, Iran oo ku hanjabtay in ay madoobeyn doonaan Yuhuudda iyo xogihii ugu dambeeyay xaaladda Gaza oo kacsanaya warkan ku falanqeyn doona. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan eegi doonaa, balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku horreynay, Ra'iisul Wasaaraha Yuhuudda ayaa qirtay jabka culus ee soo gaaray ciidamadiisa xilli Netanyahu uu sheegay in kasoo kabashada Yuhuudda ee jabka gaaray ay qaadan doonto sanado iyo qarniyo sida hadalka uu dhigay. Ra'iisul Wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa markii ugu horreysay waxa uu qirtay in jab culus oo military iyo mid dhaqaale uu gaaray Yuhuudda, isagoo sheegay in dagaalkii Hamas 7 bishan Oktoobar ay ku qaadeen deegaanada Yuhuudda ee gumaysato ay ka geysteen dhibaato aan la soo koobi karin. Benjamin Netanyahu ayaa yiri, Israa'iil waxay u tahay maalin madow iyo maalmo iyo bilo aysan ka soo kabsan karin dhibaatada ka soo gaartay dagaalka Gaza iyo Hamas ay ku soo qaadeen. Waxa ay nala noqotay mid lama filaan ah, waxay nagu abuurtay riyo iyo rajo aysan lahayn Hamas iyo Falastiin oo idil, taasoo ka dhalisay in hadda ay niyad yeeshaan qof walba oo Falastiin ahna uu si cad u sheego in maalin uun dhulka Yuhuudda ay qabsan doonaan. Hamas waxay muujiyeen dhabar adayg iyagoo aan haysan hub nooc walba oo anaga haysano. Waxay sidoo kale muujiyeen in dagaalka iyagu ku jiraan uu xaq yahay marka laga fiiriyo midka anaga aan kula jirno. Wuxuu ugu baaqay shacabka Yuhuudda inay u midoobaan waxa uu ugu yeeray dagaalka argagixiso ee markana Israa'iil lagu soo qaaday. Kala tafaraaruqa iyo kala qaybsanaanta Yuhuuddu dan uguma jirto dagaalka adag ee xilligan ay ku jiraan. Waa qasab in ay ka hortagaan wax walba oo Yuhuudda lagu duduminayo dhexdeena marka hore aan midayno si aan uga guuleysano argagixiso iyo wax walba oo Falastiin dhankeeda ka imaanaya. Sidaasi waxaa yiri Benjamin Netanyahu, Ra'iisul Wasaaraha Yuhuudda oo qirtay jabka xooggan ee iyaga soo gaaray. Isaga iska daayay horay reer galbeed iyo dunida oo idil ayaa u qirtay in Israa'iil jab xooggan uu ka soo gaaray dagaalka Yuhuudda ee kula jirto marka loo eego sida dagaalkaasi loogu jabiyay sirdoonkoodu oo lagu sheekeyn jiray inuu ahaa sirdoonka ugu awoodda badan caalamka, sida ay xitaa mar qura u ogaan waayeen weerarada Hamas ayaa abuurtay xasarad weyn dunida oo idilna tan iyo maanta ay hadal hayso. Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale shacabka dalkiisa uga baaqay in ay dagaalka ka soo qayb galaan oo ay taageero iyo garab istaag u muujiyaan ciidamada Yuhuudda sida hadalka uu dhigay. Israa'iil iyo Gazaba cashar ayaa loogu dhigay magaaladaasi Gaza, waxaana ay noqotay mid ay iloobi waayaan har iyo habeen ay hadal hayaan. Dhinaca kale, kooxda Hamas ayaa caawa gantaalo ku garaacday deegaano ka tirsan Israa'iil, tani oo dhalisay khasaare culus oo baaxaddeeda aan la soo koobi karin. Kooxda Falastiiniyiinta ee Hamas ayaa duqeyn la eegatay fariisimo ciidamada Yuhuudda ay ku leeyihiin deegaano dhaca dhulka ay gumaystaan Israa'iil. Duqeyntan ayaa la sheegay in raadarada Yuhuudda isticmaalaan Iron Dome ay qaarkood ka gudbeen oo ay qaban waayeen xaddiga gantaalada oo fara badnaa awgood iyo qalqal ku yimid Iron Dome, taasoo keentay in khasaare culus dhanka Yuhuudda uu gaaro. Kooxda Hamas ayaa sheegtay in duqeymihii caawa ay ka geysteen dhulka Falastiin ay leedahay Yuhuudda ay gumaysato ay la eegteen Israa'iiliyiintu dhowr bartilmaamood oo ay sheegeen in ay ku dileen Yuhuud badan. Cadadka Yuhuudda dhimatay ma aysan sheegin Hamas, balse waxay qirteen in weerarka ay qaadeen jab xooggan ay kula eegteen Israa'iil iyo xilifadeeda Mareykanka. Israa'iil dhankeeda oo hadashay waxay sheegeen in duqeymo lagu soo qaaday deegaano Yuhuuddu ay maamulaan, balse waxay sheegeen in inta badan duqeymahaas uu ka hortagay habka difaaca ee Iron Dome loo yaqaano Yuhuudda ay isticmaasho, balse waxay sheegeen in meelaha qaarkood ay ku dhaceen gantaalaha balse ay ahaayeen deegaano aan la degnayn.
haddaba xamaas iyo marka loo fiiriyo dagaalka yuhuudda ay kula jirto waa cashar dunida carabta oo idin loo dhigay maadaama ilaa iyo hadda dunidii carabta dhabarkay jeediyeen reer gaza iyo falastiin guud ahaan iska daa xitaa inay u hiiliyaane maalin quraan si adag uga hadlin sida turkida oo kale dagaalka gaza yuhuudda ay ka wado. haddaba iiraan ayaa ku baaqday in ay midoobi doonaan ama ay ka shaqayn doonaan siday u midoobi lahaayeen dalalka carabta. ayatullah cali qumeyn ninka ugu sarreeya ee iiraan maamulaha ayaa markii ugu horreysay sheegay in riyada iyo qorshahooda ugu weyn ee iiraan ay leedahay ay tahay mideynta dalalka carabta oo maanta qaarkood gacanta ugu jira gumaysi reer galbeed ah. waxay sheegeen in haddii dunida carabta maanta aysan u midoobin dagaalka yuhuudda ee falastiin lagu hayo maalin badal la cuni doono ilaa marka dambe israa'iil ay rabto inay isku ballaariso dalalka gobolka ee carabta u badan. ayatullah cali qumeyni ayaa 100,000 oo reer iiraana u sheegay in ay mid kasta maskaxdiisa geliyo sidii wadamada carabta u midoobi lahaayeen si looga hortago duulaanka iyo kacdoonka midabeysan ee reer galbeed oo taageero siinaya yuhuudda. iiraan waa quwadda keliya ee hadda ay ka cabsato israa'iil, waana midda keentay in xitaa maraykankii uu ka dalbado in iiraan dagaalka aysan soo gelin, iyadoo wadamadii sunniyiinta carabta ay joogaanna aan xitaa la tabin, balse maraykan uu tabo iiraan. waa tallaabo kuu muujinaysa sida loo bahdilay wadamadii carbeed. maanta walaalkood la qalanaya ee falastiin ay eeganayaan, beri iyaga ayaa ku soo xiga, beridii xigtana wadan walba oo muslim ah ayaa dunida laga tiri doonaa, ayuu yidhi ayatullah cali qumeyni oo arrintan markii ugu horreysay ka hadlay. iiraan waa quwadda keliya ee bariga dhexe ku loodin karta israa'iil marka loo eego wadamada muslimka carabta oo iyagu intooda badan dhabarka xijiyey. wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda isbitaalada ee gaza ayaa laga soo sheegayaa xaalad aad u xun. tomamos zileli longa afhayeenka xiriirka caalamiga ah ee lanqeyrta cas iyo bisha cas ee falastiin ayaa u sheegay asxaabta ee ku sugnaa halka isaga uu joogo in ay xaaladda halkaas tahay mid faraha kasii baxaysa. cisbitaalkan waxa uu la circiirayaa bukaano dhaawac ah iyo in ka badan 10,000 oo qof oo magangelyo u soo galay isbitaalka sababtoo ah waxay moodayeen inay tahay meesha ugu nabdoon. dadku waxay ku nool yihiin wadooyinka isbitaalka, jaranjarooyinka dibadda iyo gudahaba. waxaa intaa dheer 500 oo bukaano ah ayaa helaya daryeel nafadbaadin ah, waxaana ka hadlayaa qeybaha daryeelka degdega ah ICU. dhallaanka ku jira ayaa qalabka oksijiinka u baahan. Deli Long ayaa sidaasi warbaahinta u sheegtay. waxay u sheegtay in lanqeyrta cas ay aad ugu walacsan tahay amarka daadgureynta ee bisha cas ee falastiin ee sheegtay inay siisay dhaqaatiirta israa'iil. xaaladan oo kale ma jirto hab suuragal ah oo bukaanada lagu daadgureeyo, waxaana hadda si weyn looga dayrinayaa xaaladda dadka falastiin ee gaza ku dhaqan, iyadoo dhibaato culusna la soo sheegayo. saaxiibayaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyey gaza, tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.